socotaan waa Khalid Malaaba fadlan haddii aad tahay markii ugu horreysay soo boqotay subscribe like share commentiga waa adiga intaba aad u mahadsantahay so waxaan rabaa dhowr arrin jirto laakiin mid ayaan ka hadli doonaa aan diirada saari doonaa horta taasoo ah dumarka Soomaaliyeed maxaa ka qaldan ya dumarka Soomaaliyeed maxaa ka qaldan ya hadda baraha bulshada wax dhex wareegayo waa waxyaabo astaanteen aan ahayn nogula baranin aan dhaqankeen ahayn why macnaha waxaa la isdhihi karaa dumarkii xishoodka ka tegay ya diintii ku yaraatay wax ma fahansano hadda waxaad arkaysaa gabarto messenger TikTok iyo YouTube iyo Telegram blas dhex wareegaysa gabartaas mustaqbalka yaa waa ninkii soo doonanayo oo guursanayo oo reer la dhisanayo waa maya waxa arkaysaa naag ilmo soo dhashay laakiin TikTok waxay ku joogto waa waxyaabo aan shaxdar lablab loo qaadan karin maxaa ii khaldan dumarkan hadda waxaad u maleysaa boqolkiiba 95 dumarkeena farahna ka baxeen adwaanaysan jirin cid qabanaysan jirin kaale naagtan iyada wax ay doonto iska samaysanayso oo meelaha wareegayso aan shaxmadu soo gudbinayso waalid malaha miya macna ayad tol malahan kharaab malahan ehel malahan magacilba Soomaaliye saan isku dhaama dad muslimiin aan ahay ya diintiina dhowra ilaahay ka cabsada ta adduunyo way waa laga tagaa ya Soomaaliya saan isku dhaama dumarkiinan khaasatan muuqaalkan dumarka ay ku socdaa dumarka isla weynida khabiyaalada ku jirto adduunka waxa wuxuu dumarka wax mugtaay sababtoo ah fikirkeeda heer ma gaarsiisano hadalkeeda ma xadidno ma garat so adab wax aanayna wax iska dhigtid waa la garooyin walaale ma garat iska waaline yaan laga waaline ina gurigaaga u joogtid oo sharafta aad ilaashitid mid adiga dan ku tahay iyo mustaqbalkaaga okay marka kuwaas waa gabdhaha xun waay kulle meegan aan qaato ma rabo intaas ayaan ku ekeenaya marka waxaan soo gali doonaa gabdhaha wanaagsan waa tan xishoodka wax ka taqaano diinta wax soo baratay ixtiraam leh ma garatay waalidkeeda ka dambayso walaalaheeda ka dambayso deriska iyo muslimka afkeeda iyo gacanteeda laga amaan helo waa tan markii xaajigeeda ama saygeeda uu la hadlo ka dab heldeenin amarka la sii qaadanayso hadalka loo sheegana qaadanayso laakiin naga xumaad jooana ku dhahay waxa leedahay maanta saasan hayeli maaday dhashay maaday soo galatay wariya ninkaaga waxa uu dhahay waxa iska qiimo badan yahay misna iska ajir badan yahay hooyadii iyo aabi ku dhalan wariya nacalay sanjeedkiisu jeedkaaga kugu taale maxaa qaldanaa what the hell ara qarastaan ku inaa kowda dumarkii Soomaaliyeed sharaf daradan noo soo hooynaysaan inaga joojiya billaah calayk isqabta iscishada ma garatay hore waxa loo yiri no bi shiri anka sureela taas oo macnaheedu tahay naag aan xariisanin hatta walaasha haday tahay waana xaqiiq so ti isla weyn kibriyo edab dara keento meesha joogto yaa lagu qowraca maxaa jiro gabdhiisa haytii wariyada mustaqbalkiisa fikira markii oo lagu soo furano waxa leedahay farax Soomaali naayadiga reerkaaga dhaqan weysi faarabuutay to xuma ku umaynayso oo waxba u diyaarsaneen oo gibba oo fuusta la iska socota way ku imaanay way kaawaale gabadhaas qurux badanaa tahay dhabankaas kugu yaalo baridaas kugu taalo naaskaaga day walaale quruxdan iyo dhabanka lagu sheego lama bari way waa baaba ama waa isku shuuqa waliba ma garatay laakiin hadaad leedahay dabeecad wanaagsan qof asturan walaga dambeena ma sha Allah wala ixtiraama daasoo Soomaalida waxa dhahdaa la xawalba meeshiis dhigto yaa lagu qowraca
marka gabdhaha Soomaaliyeed saan wax ka bedela آخرين كفكرة أدوي مالك تجا بالله عليك وبالله توفيق مقال كان هل كان يكون إجي هاي حقي سنسي سبسكرايب لايك شير كومنت كنا فكر كاجيو أركتي مع السلامة.